munaafaqnimada iyo laboojilnimada galbeedka jaamacadda Harvard oo maalmihii ugu dambeeyay lagu dhaganaa waxaana lagu tilmaamay in jaamacadaas uu ku dhacay ama qabtay sharciga antisemitism. With a growing controversy, a congressional committee plans to open an investigation into anti-Semitism on the campuses of to testimony by 3 top university presidents who critics say failed to condemn anti-Semitism on their campuses. haddaba sidaan muuqaaladeeda hore kusoo sheegay sharciga antisemitism ama antisemitic waa sharci lagu ilaalinayo jiritaanka Yahuuda. arday badan oo dhigata jaamacadan oo iskugu jira gaala iyo muslim ayagoo aanan u fiirinin qadiyad ayaa wax iskugu soo baxeen mudaharad ay ku taageerayaan Falastiin kuna dalbanayaan ceasefire ama xabad joojin in Israa'iil ay joojiso gumaadka ay ku hayso Falastiiniyiinta. haddaba meeshaas waxaa ka bilowday in jaamacadan dagaal lagu soo qaado laguna eedeeyo maamulka jaamacadan in ardayda ay u baneeyeen in Falastiin ay taageeraan Israa'iilna ay lid ku noqdaan. Inside Harvard Yard attracted over 250 supporters of Palestine, and this group's demand to stop Israel's displacement of Palestinians in Gaza. Israel has ordered over 1 million Palestinians to flee their homes or be killed. This is not self-defense. madaxda jaamacadda Harvard ayaa waxa looga yeeray Congress-ka si loo weydiiyo su'aalo ku saabsan waxyaabahan. naagtan ayaana su'aalo weydiinaysay madaxda waliba si kulul ayada su'aalaha u weydiinayso. waxaadba moodaaba sida su'aasha u weydiinayso dadka ugumaadka ku socday inay yihiin Israa'iil. Type of hateful speech is contrary to Harvard's code of conduct, or is it allowed at Harvard? It is at odds with the values of Harvard. Can you But not our say here that it is values against the also- code of conduct at Harvard? So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it if the Yes speech or no? becomes if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? haddaba madaxda jaamacadan wax kale laguma haysto kaliya waxa lagu haystaa maxaad ardayda jaamacadda ugu fasaxdeen inay Falastiin u mudaharaadaan oo ay ka soo horjeestaan Israa'iil gumaadka ay wado waxaana madaxdaas lagu qasbay inay iscazilaan oo ay xilka ka tagaan. sidoo kale waxaa gabi ahaan la joojiyay oo la kansalay Mahdi Hassan showgan oo ka soo bixi jiray MCNBC waxaana lagu tilmaamay Mahdi Hassan inuu u janjeero dhinaca Falastiin oo Israa'iil lid ku yahay ama uu qabtay ama ku dhacay sharciga antisemitism. The Hamas controlled the Ministry of Health in Gaza. I don't have to say what you asked me to say. The man you just heard from, the host of that show, is Mehdi Hassan, and just this morning it was announced by MSNBC that his show will be canceled. The Mehdi Hassan show will no longer air over the weekends. Now, the network is announcing a major weekend overhaul for the network. Mehdi Hassan waa wariye asal ahaan muslim ah, laakiin showgiisa haddii uu ku casuumo qof Israa'iili ah su'aalaha kala ma gabado oo toos ayuu u weydiiyaa wixii su'aal ah uu qabo. haddana ugu dambeyntii waxay joojiyeen oo ay kansaleen showgii uu ku lahaa TV-ga MCNBC.